waxaan rabaa qadiyadaas si kooban inaan uga hadlo wixii faahfaahina macluumaadkeeda waa meel walba waa laga heli karaa laakiin waxyaabaha aan isleenahay in ay ummaddu la socoto ayaa loo baahan yahay haddaa xasuusataan horaantii 2017 ummadda intaan soo hor istaagnay waxaan ku dhahnay waxaan ku iri aniga qadiyadda badda haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan ahayn iyo haddii aan xil hayo iyo haddii aanan ahaynba waa u taagnaan doonaa waana u taaganahay anoo ballantaas fulinaya marka maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago xaaladda maanta ay ku sugan tahay qadiyadaas muxuu ahaa weyn oo muhiimka noo wada ahayd taariikh yar oo kooban haddaan ku bilaabo waad ogtihiin bisha Agoosto 2014 ayaa dacwadda badda dowladda Soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Hague sababtaan u geynana waxay ahayday laba jeer dowladda Soomaaliya waxaan isku daynay annaga iyo dowladda Kenya barigaas inaan ka wada hadalno arinta dacwad intaanay gaarin laba jeer ayaa wafdi ballaaran oo wasiirkeennii arrimaha dibadda ee barigaa joogay oo ah wasiirka maaliyadda ee hadda dowladda federaalka ah iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka qayb galeen shirkaas iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wafdi uu hogaaminayo waa laga wada hadlay labadii jeerba waa la isku noqday mar labaad la isku noqday waa la isla geeni waayay haddii marka la isla keeni waayay dowladda Soomaaliya door kale option kale u furan ma ahayn oo aan ahayn sida caalamka iyo qawaaniinta caalamka iyo xeerarka caalamka ay qabaan in maxaan ku yiraahday dacwad la geeyo maxkamadda caalamiga dowladda Soomaaliya go'aankaas ay qaadatay bariga sidaas la yeelay dacwadan ka geeyo dowladda Kenya taasaan rabaa marka macnaheeda inaan mar horena waa ka hadla haddana ku celiyo dacwad inaan ka geeyno macnaheeda annaga Kenya inaan isdagaalsannahay ma ahayn dacwadaba waxaan u geynay inaanan isdagaalin oo colaadba aanayna dhaxmarin annaga Kenya laba dalo diris aan nahay rabitaankayna diris kuma ahin marka optionka kaliya aan leenahay waxa waaye in aan maxaan ku iraahday aan cilaaqaad fiican iyo diris wanaag fiican inaan lahaan si marka diris wanaaggaas iyo cilaaqaadkaas fiican u jiraan aan u aadnay maxkamadda caalamiga waa ogtihiin ummadda Soomaaliyeed dhan way ogtahay maxkamadda keeskeeda intuu taagnaa annaga iyo Kenya wax cilaaqaad xumo iyo wax war xumo aan dhaxmarin ma jirin madaxweynaha Kenya dalkeena soo booqday anigoo markaas barigaas madaxweynuhu jooga dalkaas dhowr mar booqday shirkii igadoo markii ugu horeysay maxaa halkan lagu qabtay qadiyado badan oo ama heer gobol leh ama heer caalami ah dowladda Kenya ay nagu garab istaagtay barigaas oo ay dowladda Soomaaliya ugu hiilisay oo ay ku garab istaagtay marka wax cilaaqaad xumo ma jirin dacwaduna waa taagneed waa socotay marka horta keiska gaar ahaan guud ahaan taariikhdiisa hore sidaasay ahayd maxaa marka maxaa jira marka maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego la wadaago 4 sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyadda badda weli taagan tahay 4 sano ku dhawaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay 3 jeer ayaa qadiyadda badda dib loo dhigay dowladdeenu mar walba waxay ku noo sheegtaa in ay diidaneed in dib loo dhigo laakiin wax cadeynaayo dowladdeenu in ay diidaneed marna dowladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin golayaasha muxuu ahay inay la wadaagtay sida golaha wasiirada iyo golaha maxaan ku yiraahdaa baarlamaanka lama wadaagin laakiin afkana looga sheegaa leeyahay anagu waa diidaneed maxkamaduna xukun qaanuunka dugsan markii la qaadayna qodob hebel loo cuskadaa markii sidaan oo kale dacwadda dib loo dhigay xeerjajab ay tahayna labada dhinaca inta la isugu yeero laga tixgeliyo ogolaanshahooda maxkamaddu markaas ay tixgelisay dhinacay u gaartaa in markii koowaadna codsiga Kenya la aqbalay maxkamaddu aqbasho markii labaadna codsiga Kenya aqbasho markii saddexaadna codsiga Kenya aqbasho waxaan islaahay meeshaas warkaasi sax ma ahan qabaanay haddii uu sax yahayna dawladdu waxay ku dhiira lahayd dadaalkii ay ka gashay inay shacabka la wadaagto u sheegto oo aan ahayn annaga saanaan niri aan ahayn marka taas waa midaas meesha kale ayadana ay muxuu ahay dhibaatada ka jirto dacwadda waxaa mas'uul ka ahay dad Soomaaliyeed ah hogaaminayay dacwadda lawyer caalami ah oo Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed oo qiimo badan ah ayaa hogaaminaysay dacwadeena
ولا وضيقانا بدكو يقانا وجهدي مقال كذي كنت منشر xeer ilaaliyaheeni guud ee biriga joogay oo aan hadda joogin munashar maan hadda ma joogto kamid ma ah kooxdii dacwada waday xeer ilaaliyaheeni guud ayaa asna kamid ahay dadkii dawladda sida saddex qofood dawladdu saartay laba qofood oo dhinaca sharciga awgiis loogu saaray iyo qof dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda awgeed loogu saaray xeer ilaaliyaha guud kamid ahay oo kamid ahaa tiimka oo dadka Soomaaliyeedna u hadli jiray waad ogtihiin maxkamad muga laga soo bax banaankeedu ka hadli jiray dalka mugu ku soo noqdo seminar iyo workshop iyo qaban jiray xeeralayo ka hadli jiray baarlamaanka hortigi jiray ka hadli jiray dadka Soomaaliyeed si macluumaad farsamo oo sharci oo rasmi u helaan safiirkeeni noo joogay midowga Yurub ayaa kamid ah saddexda qofood oo dhinaca diblomaasiyadda iyo wakiilka isagoo qofka maxaa ku raada contactiga safaaradda ila soo xiriiraysa labada qofood la soo xiriiraysa qof kamid ah saddexdii qofoodba maanta midna kama joogo dacwadii keeskii faraha ay ku hayeen kuma hayaan saddexdoodiiba intaas waxa ka sii dar dawladdu nooma sheegin cidii lagu bedelay saddex qofood waa la bedeli karaa waa dhiman karaan ayaga muxuu ah shaqada ka tagi karo khaladaada inta garaanaaba muxuu ah shaqada laga eriyo wax kasta iman karo laakiin meeshii mas'uuliyadii yaa loo dhiibay ilaa maanta ma ogin looyaradii afartii gaalma isku hartay ajnabiga ahayd bisma gacanta ku hayso safaaraddeeni Brussels ani ilaa hadda ma ogiba in safir loo magacaabay in kale yaa joogo warqad rasmi ah oo madaxweynuhu qorayna saddexda qofoodba ay ku shaqo tageen shaqada ku hayeen xeer ilaaliyaheeni guud waa joogaa ma ogeyn inuu dacwad badeed oo shaqo ku leeyahay booskiis waa bal jooga laakiin shaqo ma ku leeyahay war case dacwo markuu jiro waad ogtiin bulshada rayidka tagi jirtay saxaafadda Soomaalida dadka socdaa tagi jiray baarlamaanka dadka socdaa joojo qurba joogta muxuu ahayn dawladda Soomaaliya marti qaadi jirtay inay ka soo qayb galaan oo ay dhageystaan oo ay dadka Soomaaliyeed la wadaagaan wixii meesha ay ku soo arkeen war maanta yaa ka qayb galay yaa og yaa ka warrama wana sawaayil marmar waxaan maqnaa ra'iisul wasaare ku xigeenka oo maxaan ku raadaya ka hadlay qiimo badan sharaf leh mas'uul Soomaaliyeed waa laakiin dacwadaani ra'iisul wasaare ku xigeen iska male wasiir male maxaan ku iraadaayay madaxweynaha iskala dacwadan warqad madaxweyne leeyahay lagu geeyay dacwada dadka wakiilka ka warqad madaxweyne leeyahay lagu magacaabay waxaan rajaynaynaa oo niyad samid ay ku jirto waxay ahayd madaxweynuhu dadku inuu hor yimaado oo dadku u sheego waxa jira ma xasuusto aniga maalin madaxweynuhu dadku hor yimid aan ka ahayn waraysigii dagaalkii Kenya oo Kenya oo dawladda Kenya iyo dalka Kenya dagaal lagu jiray aan u arkayna qadiyad dadka looga hadlay aanan ahayn bad ku saabsan badeeni marka xaaladeeda muxuu ahaay meeshaasay maraysaa waa ka xumahay inaan wadana mar kale in wixii aan sanadkii 2017 bilowgiisa aan ka hadalno maanta haddana meeshooda ayagoo joogaan ka maanta inaan farxadno naaloono dabaal degno dhulkeena waa helnay aan dhahno maxaan ku raay saasay xukunkii saas u dhacay aan dhahnay ahayd laakiin maanta inaan dhahno dibaa loo dhigay sanad maxaa soo kordhay 10 bilood hadda ka bacdi ah oo imaanay waa maxay ya dawladda oo xilligeedii hadda sii dhacaayo ma baqdin iyo ka cararid oo runta ka cararid miya dib iiga dhig hadhow cidii kale hadda ka horana waa ka hadlay dawladuhu mas'uuliyadda qarannimo oo saaran iyo mas'uul qofka madaxda ah iyo dawladdu waxay tahay dadka ka dambeeya in aanay dhibaato u abuurin xukunka qofka uga dambeynayso iyo dawladda ka dambeynayso in aanan qodxa jidka loo sii dhigdhigin oo balaayo laga shaqeyn qodxa dhigdhigid miya tan marka maarso 2021 dawlad kale lacal haday timaado ha ku dhibtoota miya ya dhiiranaan la'aan miya oo lacal hadii oo xukunka sidii aan rabno uu noqon waayo shacabka ku qabsanaa miya nin maxkamad tagay ama xukunku waa hela ama waa weyna ama waa loo xukumaa ama waa laga xukumaa hadaa maxkamad tagtay labadaas aad mid sugay laakiin adaa laga rabaa gartaada sida u naqsanaad u cadeysanad in laga baqa marka oo la yiraahdo war lacal waa intaas oo geedana lagu rogaayo bal dib hana looga dhigo kuwa dabo imaan doon hadii kuwa kale yimaadaan kuwaas leeyahay la tacaalaana miya ma dawladdu waxa u calaamaysan ilaa muxuu ahay February March bisha ka horeysa February 2021 inay sii gaarto ma u calaamaysan
oo ay xoogaa muxuu ahaay sii jiida xariga maya waxaasi waa sharciyada markaad haysatay macna leedahay waliba gabagaba gaarin hadda meelihii ugu dambeysay joogtaa dawladda markaanoo kale wax walba waa inay iska soo xadidaa oo ay ku aruurtaa transitionka kala guurka sida loo maaray lahay si nabada loogu maaray lahay iyo waxyaabaha essentialka ah amniga iyo waxa ay ka mid yihiin inay xoogga saarto laakiin in maxaan ku iraadaaye la laabto muxuu ahay waxba ma taris muxuu yiri ninkii odagahay luuq marow laazim laamigaas ma dawladdu marka dambe oo meeshaas ku soo dhacay haddaad xilka haysana waa ku soo dhacay haddaa ka tagtin waa ku soo dhacay asaa jooga biri asaa noolahay lagu dhaale muxuu ahay maanta muxuu ahay jaamac jooga la dhihi maayo haddaad joogtid waaba joogtaa waaba lagu haystaa oo markaas aad taagan tahay marka muxuu ahay arintaas ummadda Soomaaliyeed ma qabato waa uga tacsiyeynayna in qadiyadii badda muddo 4 sano meesheedii ay taagan tahay oo waxba aan ka dhaqan sida qadiyada kale oo badan ba ay meesheedii u taagan yihiin 4 sano ee la soo oo sid gabagaboobayso muddo xilaadka dawladdan ahayd doorasho maxaa laga qabtay yaqaan inkastoo maanta mowduuceena doorasho aanu ahayn oo maalinteeda aan ka hadli doono maxaa laga qabtay dhismihii ciidamada maxaa laga qabtay federaaleyntii dalka maxaa laga qabtay dastuurkii maxaa laga qabtay wixii qabyada noo aayo biriga annagana lagu eeday jiray oo qabyo inoo yihiin waa dhamaystiri doona aan lahayn oo dhan oo qabyo ilaan dalkaanay qabyo u ahayn guriga xasan sheekh qabyo uma ahayn maxaa laga qabtay maxkamadda dastuuriga aawe adeega garsoorka aawe maxaan ku iraahdaa heshiisyadii la soo galay aawe waxa kale oo rabnaa dawladdaani muddada ay joogtay yaa garanayo heshiisyo caalami ah oo ay soo gashay oo baarlamaanka la horgeeyay ya heshiis kasta oo la soo galaayo waa in baarlamaanka la geeyaa ilaan codka shacabka baarlamaanka ah labada gole in la horgeeyo oo la yiraahdo dawladdu heshiiskaanay soo gashay maslaxadaanay ka aragtay dantaana ugu jirto saan waaye ama waa caalami oo waa ku qasbaneen inaan maxaa ka mid noqono caalamka waa in loo sheegaa male wixii la soo galay waa shib dacwadan iyo buuqeedii iyo wixeeda waa iska sheegida heshiisyo hoose ma jira oo hore loo galay ma jira oo dadka loo sheegayna war maxaa la qariyoha mustaqbalka ummadan qaris ma galo la gambasho ma galo ka harid ma gadiyo hore ha loo soo socdaan leenahay muxuu ahaa ayaan marna dib looga dhicin aad iyo aad u mahadsantihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh